Waa Dalmar Jeele Baladey oo idinla wadaagi doono taariikhda dhulka Beesha Gore. Dhulka Beesha Gore waxa uu ka kooban yahay 5 dooxood oo ay ku magacaabaan Bakool. Waxay leedahay buuro dhaadheer sida Buurta Gaari, Buurta Habroone iyo wixii la mid ah. Waxaa kaloo maro webiyo sida Webiga Weeb, Webiga Ganaale iyo Webiga Awaas. Ma aha midkan cafarta mara. Waxa uu dhulka Gore ka soo galaa galbeedka magaalada Guradhamoole. Waxaa jiro 5 buurood oo ay ilo biyo ay ka soo burqadaan si joogto ah, sida Cawlaay oo u jirta magaalada Qondhi 10 kiiloomitir dhinaca koonfureed. Dhulka Beesha Gore waxa uu dhan yahay sida ay sheegeen waxgaradka Beesha Gore. Dhererka dhulka waxa uu la eg yahay 500 kiiloomitir. Ballacuna waxa uu la eg yahay 300 kiiloomitir. Guud ahaan waxa uu la eg yahay 150,000 kiiloomitir square. Waa runtii dhul aad iyo aad u baaxad weyn. Magaalada Guradhamoole waa degmo qadiimi ah oo jirto ilaa iyo xukunkii Boqor Hayle Selassie. Waxa ay ka fac weyn tahay kilka shanaad. Waxay u dhaxaysaa 2 buurood oo lagu kala magacaabo Buurta Habroone oo ka xigto dhinaca koonfureed iyo Buurta Dhamoole oo ka xigto dhinaca waqooyi. Waa magaalo ku taala meel u dhow xadka Soomaalida iyo Oromada qiyaastii 7 kiiloomitir. Waxa ay ka mid ahayd meelihii ay dagaalada ku soo noqnoqdeen. Waxay galbeedka ka xigtaa magaalada Qondhi masaafo dhan ilaa iyo 85 kiiloomitir. Waxaa mara jid ka soo leexdo magaalada Meylo kaasoo dhinaca buurta dheer ee lagu magacaabo Barbaraay kana soo dhaca magaalada Haroodmaal Gooro-Baqaqsa. Runtii magaalada Gooro-Baqaqsa waxa ay u jirtaa magaalada Jarati masaafo dhan 130 kiiloomitir. Waxa ayna ka xigtaa dhinaca galbeed. Waa magaalo kililka Lafac ah. Waxay waqooyiga ka xigtaa Webiga Weeb masaafo la eg 22 kiiloomitir. Waxay leedahay suuq xoolaad. Waxa ayna ku taalaa wadada halbowlaha u ah beec mushtarka ka yimaado Doolo Caddo, Jarati, Hargadab. Waxay tagtaa kililka Oromada kana sii gashaa magaalada Suufi Cumar ee ku taalo bariga Baali. Qarsaduula waxa ay leedahay maamul u gaar ah. Waxayna Gooro-Baqaqsa u jirtaa masaafo dhan 300 kiiloomitir. Waxayna ka xigtaa koonfurta galbeedka. Waa dhul ugu fiican dhinaca waxbarashada maxaa yeelay waxaa maro Webiga Ganaale. Waxaana ku nool dad xoolo dhaqato ah iyo beeraley oo xirfad fiican u leh beeraha. Hargadab waa magaalo istiraatiiji ah. Waxa ay ku fiican tahay dhinaca ganacsiga. Waxa ay u jirtaa Gooro-Baqaqsa 35 kiiloomitir oo dhinaca galbeed. Sidoo kale waxa ay magaalada taariikhi ah ee Suufi Cumar u jirtaa masaafo dhan 85 kiiloomitir oo dhinaca galbeed. Waan salaamayaa dhammaantiin. Khayr iyo caafimaad idin rajeynayaa.